السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال maanta waxayna tusayaa qaabka ugu fudud ee loo samaysto Gmail ama Google account. Marka sida Google account iyo Gmail waa isku mid. Marka waxaan ku tusayaa qaabka ugu fudud war badan yaan kugu daalin. Waxaa imaanaysaa browserkaaga, ani waxaan isticmaalayaa hadda Chrome baa isticmaalayaa. Marka waxaa imaanaysaa browserkaaga, kadibna waxaa ku qoraysaa www.gmail.com. intaasa qoraysaa, kadibna waxaa kusoo baxaya website-kaas. inta badan blue buu kugu soo saaraya, wuxuu ku tusayaa website-kan inuu authentic yahay. marka Google-ha iskale waana website-ka ugu horeeya kusoo bixi doona. kadibna waxaad leedahay enter, waad gelinaysaa. kadibna wuxuu kusoo saarayaa page-kan. halkan waxaa ku qoran magaca si iskaga hubisid Gmail baa ku qoran. kadibna wuxuu ku leeyahay samayso account. marka account-ka maxaa u samaysanaysaa? sababta u samaysanaysid ayaad waxa weeye ayuu halkan ku tusayaa. marka account-ka samaysanaysid wuxuu ku kala doonaysiinayaa account-ka maxaa u samaysanaysaa, ma shaqa u samaysanaysaa mise waa account kale oo iska caadi. marka haddaa shaqa u samaysanaysid waxaa ku dhufanaysaa halkan fiiri, shaqa miyaa u samaysanaysaa. haddaa shaqa u samaysanaysid halkaana ku dhufanaysaa. laakiin maanta aniga account-ka aan samaynano ama Gmail account-iga aan samaynano waxaan u samaynaynaa mid iska caadi, mid iska normal, shaqa u samaysan mayno. adduunyadeena kale ayaanun waa adeegsanayna. soo daraadeed marka waxaa ka samayn karaa inaad tiraahdo halkan create an account oo halkaa ku dhufatid, ama intaa halkan imaatid aad tiraahdo create an account. waa isku mid, labada mid kaa doontid ayaad samayn kartaa. annaga marka waxa weye mid baa isaga dhufsanaa, balkaan iska dooranana. kadibna wuxuu keenayaa page-kan, wuxuu ku leeyahay create Google account. waxaad samaysataa Google-ka macnaha account ka samaysa ayuu ku leeyahay. halkan waxaad gelinaysaa magacaaga, first name buu ku leeyahay, laakiin annaga waxaan gelinaynaa waa magacaaga horu ka wada, magacaaga koowaad. laakiin annaga waxaan gelinaynaa magaca aan rabno inaan ku samaysano Gmail-ka cusub ee aan maanta samayn doono. marka waxaan dooranayaa tusaale. surname waxa weeye waa iska optional hadduu ku yahay necessary maan oo lagama rabo, macnaha waa ka gudbi karaa. marka waxaan rabaa inaan maanta aan ka gudbo, magacayga waxaan ka dhigtay tusaale. halkan wuxuu ku weydiinayaa inaad gelisid maalintii aad dhalatay, bishay ahayd iyo sanadkii aad dhalatay. sidoo kale wuxuu rabaa inaad gelisid ma nin baa tahay mise qof dumara. maalinta aan dhalanin waxaan kasoo qaadanaa Soomaalidu dhan waa iska taqaanaa 1 bisha 1. waa ila garanaysaa. marka sanadka ayaan ku kala duwanahay, inta kala Soomaali waa iska wadaagnaa. okay, halkan ma taqaana genderka waxaan dooranaa, ani gender ma jecel, laakiin waxaan dooranaa male, inaan ma taqaana nin tahay. male waa nin, female-na waxa weeye waa qof dumara. rather not to say waxaad dooratay inaad dhihin. hadda anigu waa dooran karaa inaan sheegin inaan nin ahay, inaan naag ahay, inaan balaayo kale ahay. customna wuxuu ku geenayaa arrimo kale adduunyada ka socda ku keenaya. marka aniga maadaama nin aan ahay waxaan dooranayaa inaan iraahdo male. okay, next baan dhahayaa marka intaa buuxisid. kadib wuxuu ku siinayaa suggestions, email-ka aad samaysanaysa. annaga hadda email-ka magac ciwaankiisii weli maynu dooran. marka wuxuu ku kala siinayaa, wuxuu ku soo jeedinayaa ma email-kana rabtaa. ana waxaan leeyahay create your own Gmail address. waxaa ku mashquulin, waxaad samaysataa mid aad adigu u madax bannaan tahay. okay, marka kaasaan ku dhufanaya. kadibna wuxuu iisoo saarayaa create a Gmail address buu ku leeyahay. waxaad samaysaa address ama ciwaan, Gmail-kaaga ciwaan u samee. marka ciwaanka u sameynaya waxa weeye tusaale noqo ayaan ka dhigaya. halkan wuxuu ku siinayaa waxa aad Gmail-kaaga uga koobnaan karo. tusaale ahaan kale waxaa ku dari kadhaa, wuxuu ku leeyahay waxaad isticmaali kadhaa xarfo. hadda aniga xarfaan ka wada dhiga Gmail-kayga. waxaad ku dari kadhaa buu ku leeyahay nambaro kaliya kama dhigi kadhid, waa inaa xaraf ku dadhaa. hadda fiir labada tusaale u kala siiyey, midna wuxuu siiyey mid xarfo oo magac ah oo tusaalihii ah iyo 48 oo number oo isla socda. midna wuxuu siiyey t oo tusaalihii u taagan iyo nambaro. marka labadaas ka dhigi kadhaa. sidoo kale full stop baa ku dari kadhaa. full stop waxa weeye joogsi baa ku dari kadhaa. haddaa rabtid inaad full stop ku dadhid ama joogsi ku dadhid, waxaa kala dhex gelinaysaa magacaaga iyo magaca kala dee laba magac. tusaale kale haddaa qaadatay Cabdillaahi Cabdi, haddaa qaadatay waxaad u dhaxaysiinaysaa Cabdillaahi iyo Cabdi ayaa dhod u dhaxaysiinaysaa. haddii aadan dhod rabinna aad rabtid number inaad ku dadhid, waxaad dhihi kadhaa. haddaan doonana waxaan ka dhigi karaa tusaale 1990. bal hadda fiir kama la qaato talo, waa la qaatay. hadduu mataqaana kulaasaan name is taken haddii la yidhaahdo waxa weeye waa la qaatay oo ciwaankaas horey buu u jiray, ciwaan cusub la imo. marka aniga waxaan dib ugu noqonayaa magacayga caadiga ahaa oo waxaan leeyahay tusaale noqo ayaan ka dhigayaa.
sababta ka cidna ma qaadan waana magac wanaagsan oo Soomaali halkan waxaan ku qorayaa passwordki waxa la rabaa inuu ka koobnaado isku dar xarfa ah tusaale ahaan kala magacaagii tusaale iyo nambaro oo ah lambar caadiya iyo symbols waxa tusaale oo ah at hadda aan tusay at oo kala ku dari kada gmail-kaaga hashtag ba ku dari kada calaamada dollarka ku dari kada calaamada percentage-ka adiga calaamadii kale oo aad rabtid oo mataqaana symbols-ka waxyaalaha loo yaqaan ama calaamadaha waxa numberna ahayn xarafna ahayn caadiya oo calaamada ayaad ku darsaa mataqaana password-kaaga si aad uga dhigtid strong marka wuxuu leeyahay create a strong password waxaad samaysaa password ama furasireed adag oo aan la qiyaas karin marka magacaaga kale inta badan lagama dhigto aniga hadda password baan sameysanayaa hadda show password waxa weeye macnaheedu waxa meesha ku qoraysid ayaa la arkayaa marka anu ma rabo in aragtaan waxa meesha ku qorayo sadaradeed waxaan u sameysanayaa password cusub kadibna waxa weeye next baan leeyahay wuxuu ku leeyahay please choose a strong password aniga hadda wuxuu leeyahay password-kan geliyay waa password jilicsan wuxuu leeyahay waa inaad samaystaa password adag password-ku waa inuu ka kooban yahay xarfo nambaro iyo calaamado sadaraad hadda waa ku celinayaa waayelay halkan marka wuxuu ku weydiinayaa si aad u confirm gareysid bulay si aad u xaqiijisid inaadan ahayn robot sababta ayaamaha waxaan soo batay AI ama artificial intelligence wax loo yaqaano oo mataqaana dad iska dhigaya gmail samaysanayaan blay samaysanayaan arrimo badan baa loo isticmaalaa mar rabo inaan galo laakiin si aad u xaqiijisid buu ku leeyahay inaad robot ahayn waa inaad cadaysaa code baan ku soo diri doonaa phone-kaagana ama number-kaaga kugu soo diri doonaa marka waa inaad يعني number-kaaga meesha ku qortaa marka ani number-kayga meesha ku qoraya adigana hadhow hadduu ku weydiiyo number-ka caadiga ba ku qoraysaa oo aad leedahay Google wuxuu ku soo dirayaa SMS ama message buu kugu soo dirayaa number-kaaga kugu soo dirayaa kadibna message-ka waxa la socda code-kaas aad gelin doontaa kadibna uu xaqiijinaya marka ani hadda number-kayga gelinaya hadda wuxuu weydiinayaa code wuxuu leeyahay enter the 6 digit verification wuxuu ku soo dirayaa 6 number marka 6 number wuxuu kugu soo dhacayaa numberkii ameesha gelisay numberkaaga waa ina haysataa ama qof saaxiibkaaga kala mataqaana dhigi ka dhaa aan mataqaana isticmaalo numberkaaga aniga hadda waxaan gelinayaa code-kii numberkayga igu soo dhacay kadibna waxaan leeyahay next marka wuxuu ku leeyahay recovery email-ka waxaad leedahay waa optional ama waa ka boodi ka dhaa ama waxa weeye waa gelin kada ani recovery email-ka waxa laga wadaa hadii email-kan ama gmail-kan cusub ah hadda samaystay haday wax kaaga dhacaan xagee kala soo xiriirnaa xagee mataqaana channel-ka arrimo badan baa loo isticmaalaa recovery email-ka hadii mataqaana gmail-kaaga yani qof kala soo galo si uu ku ogeysiinayaa waa sidoo kale wuxuu ku sahlayaa inaad hadhow marka Google la hadashid oo mataqaana wuxuu ku weydiinayaa recovery email marka arrimo badan baa loo isticmaalaa mar raba inaan galo aniga laakiin hadda ma isticmaalayo oo ma gelinayo recovery email sababta email-kan waxa laga yaabaa inuu yahay email-kaaga koowaad oo kugu horeeyay marka waxaan leeyahay skip baan leeyahay ama next wax dhigi ka dhaa markii waxa way gelisay hadaa meesha gelisid oo mataqaana email recovery gelisid waxa isticmaalaysaa next oo ah mataqaana page-ka ku xiga laakiin aniga had maadaama aan email gelinayn waxaan leeyahay skip marka number-kayga halka isoo saaray wuxuu leeyahay Google will use this number only for account security. Your number won't be visible to others. Arrimo amni dartood ayuu Google wuxuu isticmaalayaa phone number-kaaga. Marka phone number-kaaga dadka kale ma arki doonaan ee Google ha isticmaalay. Okay, marka waxa weeye skip baan leeyahay. Marka Gmail-kayga waxa weeye review your Gmail tusaale noqo. Review waxa laga wadaa arrimaha waxa aan ku qoray meesha wax xaqiiqa inay yihiin. Magacayga waxa weeye tusaale Gmail-kayga ciwaankiisana waxa weeye tusaale noqo. waxaan leeyahay intaan waa sax kadibna wuxuu weydiinayaa in aqbalo privacy and terms waa inaad iska akhridaa Google wuxuu ka qaadanayo qaabka ay mataqaana datadaada u isticmaalayaan waxa aad yani awood u leedahay inaad samaysid account-ka ka samaysid waxa weeye qaabka ay datada u process gareeyaan waxyaalahaas oo dhan ayuu ku weydiinayaa marka
option badan ba halkan waxa arkaysaa activity ay waxas insha Allah waxaan hadii lahaydna qaybahan waxaan tusi doonaa hadii lahaydna gmail-ka oo yani waxaan ka soo diyaarin doonaa muuqaalo faahfaahsan oo wax walba gmail-ka uga baahan tahay ku baray hadii lahaydna muuqaalada la xiga la soco oo ay ku dhaafin marka ani agree baan leeyahay hadda termiski iyo wax walba waxa weeye marka gmail-kiga hadda waa sameystay hadda gmail-kiga waa ii samaysan yahay halkaan aan imaanaya kadibna waa kan hadda maxaa ku qoran tusaale noqo gmail.com halkaan magacayguna waa tusaale haddaan rabo waa iska bedeli karaa hadhow haddaan doono waa diisan karaa aday ku taala waxaan filayaa inaan ka faa'iiday casharkan qaabka loo sameeyo gmail cusub haddaa u baahan tahay casharo kale oo gmail-ka iyo googlaha iyo youtube-ka iyo casharo badan oo waxa weeye dee la xiriira qaabkii naftaada yani technologiyada digital world baan ku jirnaa marka haddaad technologiyada ama waxa weeye aabiska iyo waxyaalahan yani mobilkaaga ka buuxa haddaad isticmaali aqoon waa lagaa tegayaa wax badan oo faa'iida baana ku dhaafaya saa daraadeed si aa u baratid nagu soo biir meeshan waxaynu kula wadaagi doonaa arrimo badan oo wax weeye aad iyo aad muhiim u ah ama arday ahow ama qof waalid ahow ama waxa weeye macallin ahow waxa doonta ahow waxaan rajeynayaa oo waxaan hubaa hadii lahayd casharada meesha kula wadaagi doono inay faa'iido badan noloshina ku soo korin doonaan marka intaas ku soo gabagabeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu